kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel walbo aad dunida ka joogtaan kusoo dhawaada barnaamij wareedkeena Sagal News. Qodobada xiisaha badan ee aad maanta barnaamijkeena ku daawan doontaan waxaa ka mid noqon doona Ra'iisul Wasaare Roble oo saanad ciidan u diray Galmudug oo shalay dagaal qaraar ka dhacay oo Al-Shabaab ay guulo ka sheegteen. Taliban oo hal arrin ka ogolaatay dowladda dalka Mareykanka. Dhinaca kale Al-Shabaab oo qasbaysa in Muqdisho laga hirgeliyo manhajkeeda waxbarasho. Maxaa sababay khilaafka soo kala dhexgalay guddiga doorashooyinka? qodobadaas iyo qodobo kale oo xiiso badan ayaad barnaamijkeena ku daawan doontaan daawadayaal inta aan barnaamijka ku guda jirno. waa maalinimo Arbaca taariikhdu ay ku beegan tahay 18 Agoosto sanada 2021. kusoo dhawaada qodobadii aan idin sheegnay oo faahfaahsan. Ilwareedyo kala duwan ayaa sheegay in Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble uu fasaxay 2 diyaaradood oo hub wada oo laga dejiyay magaalada Gaalkacyo. Xogta aan helnay ayaa sheegaysa in diyaaradahan ay 2 toddobaad ka hor ay ka degeen magaalada Gaalkacyo, waxayna wadeen rasaas, hubka fudud iyo saanad kale oo ciidan, iyadoo lagu wareejiyay Senator Cabdi Xasan Cawaale Qaybdiid oo codsaday hubkaasi. Hubka laga dejiyay Gaalkacyo ayaa la qorsheeyay in Al-Shabaab looga saaro deegaanada koonfurta gobolka Mudug ee Soomaaliya, waxaana dagaalkaasi saraakiisha hogaaminaysa ka mid ah taliyaha ciidamada dhulka Soomaaliya General Biixi iyo saraakiil kale. Ciidamada huwanta ayaa hadda ku dhow degmada Xaradheer ee gobolka Mudug, iyadoo ay soo qabsadeen dhul ballaaran oo hoostaga gobolka Mudug ee bartamaha Soomaaliya. Dagaalka lagula jiro Al-Shabaab ee ka socda deegaanada dhaca koonfurta gobolka Mudug ayaa jawaab u ah weerarkii Al-Shabaab ay ku qaadeen deegaanka Wisil ee gobolka Mudug dabayaaqadii bishii Juun ee sanadkan. Weerarkaas oo Al-Shabaab ay ku dileen ku dhawaad 50 qof oo shacab ah. Ra'iisul Wasaare Roble ayaa la sheegay inay ka go'an tahay inuu xaqiijiyo in dowladda Soomaaliya uu hadda awoodeeda fulinta si buuxda gacanta ugu hayo, in ay awoodiisa ay uga qayb qaadato in Al-Shabaab laga xoreeyo deegaanada gobolka Mudug. Dhinaca kale Al-Shabaab ayaa isku dayeysay inay qasab ka dhigto in manhaj ay diyaarisay laga dhigo iskuulada ku yaala magaalada Muqdisho. Al-Shabaab ayaa u yeeray maamulayaasha qaar ka mid ah iskuulada Muqdisho si ay arrintan ugala hadlaan, waxayna ku amreen inay qaataan manhaj cusub oo waxbarashada oo ay soo saareen dagaalamayaasha Al-Shabaab. Al-Shabaab ayaa u sheegay barayaasha in maamulayaasha iskuulada ay qasab ku tahay qaadashada manhajka cusub ee iskuulada hoose, kan dhexe iyo kan sare, kaasoo ay sheegeen inuu yahay kan saxda ee lagu bixin doono guud ahaan dalka. Waa sida ay hadalka u dhigeen. Arrinkan ayaa durba caqabad ku noqotay maamulayaasha iskuulada, iyagoo ka walaacsan sidii ay ka yeeli lahaayeen amarka Al-Shabaab maadaama aysan diidi karin, sidoo kale aysan aqbali karin maadaama Muqdisho ay ka taliso dowladda federaalk ee Soomaaliya. Guud ahaan Soomaaliya marka laga reebo deegaanada Puntland iyo Somaliland, waxaa hadda ka dhaqan galay manhajka ay soo saartay dowladda federaalka, kaasoo ka kooban ilaa iyo dugsi sare. Lama oga sida xalku uu noqon karo qorshaha Al-Shabaab oo halis ku ah waxbarashada Soomaaliya iyo ammaanka dalka haddii uu dhaqan galo qorshahaasi. Dowladda Soomaaliya ayaa weli ka hadlin arrinkan oo hadda ay soo baxday. Al-Shabaab ayaa horey amaro badan uga dhaqan gelisay Muqdisho, sida inay qaado canshuur, hase yeeshee arrinta manhajka ayaa ah mid ka duwan maadaama ay tahay wax muuqdo oo sida canshuur bixinta aan loo qarin karin. daawadayaal weli barnaamijkeena Sagal News ayaan ku guda jirnaa. Maxaa sababay khilaafka soo kala dhexgalay guddiga doorashooyinka? Guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa waxaa la sheegay inuu soo kala dhexgalay khilaaf ka dhashay soo saarista habraaca doorashada golaha shacabka ee Soomaaliya ee shalay la shaaciyay kadib qoraal ka soo baxay guddigaasi. Saciid Abshir oo ka mid ah xubnaha guddiga ayaa faahfaahin ka bixiyay sababaha keenay khilaafkaasi iyo waxa ku dhalayay inuu ka hor yimaado habraaca la soo saaray. Sababta ayuu Saciid ku sheegay in weli aan la gaarin xilka loogu talagalay. Sababta ayuu Saciid ku sheegay in aan weli la gaarin xilligii loogu talagalay in la shaaciyo habraaca maadaama maamulada qaar aysan soo dhammaystirin doorashada aqalka sare. Habraaca ma diidin, balse waqtigii la shaacin lahaa lama joogo. Waxa aan nahay guddi madax bannaan oo loo xilsaaray doorashooyinka dalka. Waxaan ku shaqeyno ma aha sharci qoran ama xeer doorasho oo hore loo ansixiyay, ayuu yiri Master Saciid Abshir. Sidoo kale waxa uu la yaab ku tilmaamay shaacinta habraaca doorashada oo uu sheegay in lagu soo aadiyay xilli ay xubnaha qaar ee guddiga ku maqan yihiin maamul goboleedyada. Xubnaha ugu sareeya ee guddiga waxa ay dowlad goboleedyadu u aadeen la socodka doorashada senatarada aqalka sare ee baarlamaanka federaalk Soomaaliya. Guddiga ayaa kala maqan oo laga yaabaa in ay soo saaraan arrin masiiri ah, ayuu hadalkiisa sii raaciyay Saciid oo ka tirsan guddiga doorashooyinka qaranka.
arrintan ayaa sababi karta inay xumaato wada shaqaynta xubnaha guddiga doorashooyinka heer federaal oo ay sugayso howl adag oo ku aadan qabashada doorashooyinka sanadkan 2021. Shalay ayay ahayd markii guddiga doorashooyinka uu soo saaray habraac iyo shuruudaha doorashooyinka xildhibaanada golaha shacabka oo ay soo dooran doonaan xubno ergooyin ah. Hay-adda la socodka kalluumeysiga Indonesia ee loo soo gaabiyo DFW ayaa sheegtay inay heshay ashtako ku saabsan in 13 kalluumeysato oo dalkaas u dhashay oo muddo 8 bilood lagu haysto gudaha Soomaaliya. Isku xiraha qaranka ee hay-adda DFW Abdi Shovan ayaa sheegay in dowladda ay ku wargeliyeen dhacdadan 29 Juun. Waxaa jiray dadaalo ay sameysay dowladda Indonesia, hase yeeshee ilaa iyo hadda kuma guuleysan inay soo qaado shaqaalahan Indonesiyaanka ah ee ku xaniban gudaha Soomaaliya, ayuu yiri Mr. Abdi. Shaqaalahan ayaa sida uu sheegay u shaqeynayay maraakiib iyo doomo kalluumeysi oo ay leedahay shirkadda Leo Dingyu oo dalka Shiinaha ka diiwaan gashan, waxayna haysteen qandaraas 1 sano oo kasoo bilowday December sanada 2019 kuna ekaa December 2020. Abdi ayaa sheegay in dadkan oo xiriir la soo sameeyay ay u sheegeen inay ku sugan yihiin xaalad cabsi iyo xanuun iyo walaac, uuna ka cabsi qabo inay sameeyaan ficilo ay isku dili karaan ama naftooda halis u gelin karaan. Waxa uu intaas ku daray in ilaa hadda uu dhintay 1 qof oo ka mid ah dadkaasi, mid kalena la laayahay. Abdi ayaa sheegay in dhimashada iyo qofka la laayahayba ay ka dhaceen doonta ay leedahay shirkadda Shiineeska. Dowladda Indonesia waa inay tallaabo qaadaa oo ay soo badbaadisaa dalkoodana ay ku soo celisaa 13 qof oo hadda ku sugan gudaha Soomaaliya, ayuu yiri Mr. Abdi. Faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helaya dagaal u dhexeeya ciidanka daraawiishta Galmudug iyo Al-Shabaab oo shalay galab ka dhacay deegaanka Shabeelow ee gobolka Mudug, waxaana ka dhashay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac, iyadoo dhinaca kale ay Al-Shabaab guulo ka sheegteen dagaalkaasi. Inta la xaqiijiyay 5 askari oo ka tirsanaa daraawiishta Galmudug iyo sarkaal sare ayaa ku geeriyooday dagaalkaasi kadib markii Al-Shabaab ay weerar culus ku qaadeen fariisin ay ciidamada daraawiishta Galmudug ku lahaayeen deegaanka Shabeelow oo u dhow Bacaadweyn. Dadka deegaanka ayaa sheegay inay jiraan dhaawacyo badan oo soo gaaray ciidamada daraawiishta Galmudug marka laga soo tago dhimashada 5 askari iyo sarkaalkaas oo ay xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan daraawiishta Galmudug. Gaashaanle Maxamed Cali Salaad oo ah sarkaalka ku dhintay dagaalkaasi ayaa ahaa taliyihii ururka horseed ee ciidanka daraawiishta Galmudug. Sidoo kale gaari dagaal ayaa la sheegay in ciidanka Galmudug looga gubay dagaalkaasi. Warbaahinta taageerta kooxda Al-Shabaab ayaa warisay in war ka soo baxay kooxda ay ku sheegatay in ciidamada Galmudug ay dagaalka uga dileen 30 askari iyo saraakiil ay ka mid yihiin iyo dhaawacyada 10 askari, waa sida hadalka u dhigeen. Sidoo kale warkan laga soo xigtay Al-Shabaab waxay ku sheegteen in dagaalka ay ku qabteen taliyihii ciidamada badda maamulka Galmudug isagoo nool, kaas oo magaciisa ay ku sheegeen Xirsi Cali Shire. 2 sarkaal oo lagu kala magacaabo Maxamed Cali Salaad iyo Cali Diine ayaa sidoo kale sheegeen in dagaalka ay ku dileen isla markaana ay soo furteen 3 gaari oo sida ay sheegeen uu lahaa Senator Cabdi Xasan Cawaale Qaybdiid. Daawadayaal, intaas waxay nooga dhan barnaamij wareedkeena maanta oo aad kala socoteen Sagal News. intaan barnaamijkan lacin aynu ku kulmi doono waxaan idinkaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo.